booliiska magaalada Trondheim ee dalka Norway ayaa xabsiga u taxaabay 4 dhalinyaro ah kuwa oo 2 ka mid ah uu ku soo eedeeyay fal isku day dil ah. Labadan dhalinyarada ah oo ay da'doodu kala tahay 18 jir iyo 20 jir ayaa hore waxaa loogu soo oogay dacwad ah isku day dhaawac. Hayeeshee kiiska ayaa loo kordhiyay kadib markii kiiskooda ama dacwadooda laga dhigay fal isku day dil ah. Arrintan ayaa ka dambeysay markii magaalada Trondheim ay dhaawac aad u halis badan ugu geysteen nin 30 jir ah oo ay mindi dardareen. Qareenka booliiska Neil Christian ayaa sheegay in ay hayaan cadeymo iyo agab muujinayo sida ay dadkani isugu dayeen dilka ay u geysanayeen ninkan 30 jirka ah oo ay tooreyda ku dhaawaceen. Waxa uuna intaa sheegay in ay goobta ka soo heleen funaanad dhiig badan leh iyo sidoo kale waxyaabo kale. Hayeeshee waxa uu intaa ku daray inaysan ilaa iyo hadda hayn mindida ama tooreyda ay ninkan 30 jirka ah dhaawaca culus ugu geysteen. 30 jirkan ayaa yeelay isbitaalka magaalada Trondheim waxaana lagu dabiibayaa oo xaaladiisa lagula tacaalayaa halkaasi isaga oo qaba dhaawacyo culus. Labadan wiil ee 18 jirka iyo 20 jirka kale ah ayaa waxaa lagu sii haynayaa xabsiga sida ay booliisku sheegeen si aysan u dhimin cadeymaha iyo sidoo kale baaritaanka xaqiijintiisa. Booliiska ayaa sidoo kale sheegay in ay baaritaan adag ku hayaan waxa ka dhaxeeya dhibanaha 30 jirka ah ay dhaawaca mindida u geysteen raggan iyo sidoo kale labadan wiil ee eedeysanayaasha ah ee falkan lagu soo eedeeyay dacwadooduna ay ku socoto. Arrintan ay dambiyada dhalinyarada ayaa si aad ugu sii xoogaysanayso qaybo kala duwan oo dalka Norway ah, waxaana maalmihii u dambeeyay dhacayay falal amni darro iyo dhibaataynta oo ay geysanayeen dhalinyaro ay da'doodu ka yar tahay 20 sano. Halka warka kuwooda ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.